marka laga hadlayo dhinaca hoyga, dhinaca raashinka, dhinaca biyaha iyo dhanka daawadaba. dadkaas oo kaamamka ku nool oo ku dhaqan oo la soo ururiyey hogaamiyaashoodii iyo xubnahoodii, kaam weliba dad cayiman laga keenay oo tiradoodii ilaa 200 wax dheer ruux gaarayso ayaa la isugu keenay halkan. ujeedkana wuxuu ahaa in la waraysto wixii noo qabsoomay inaan maaragtay aan iswaraysano, dhibaatada haddana haysa inaan iswaraysano, sidii looga bixi lahaana in laga wada hadlo, la weydiiyo dadka inta diyaarka u ah inay dib u laabtaan oo beerahooda abuurtaan, loo abuuro nolol u dhiganta ama ku dhow tii hore mid la mid ah, xoolo loo abaabulo, loo abuuro, la rabo la geeyo goobtoodii ayagoo raashinkoodii saxidooda wata, la dejiyo, ay helaan amni iyo hooy, beerahooda abuurtaan oo gashaan oo abaar maaragtay saas ay ku baxaan. waxaa kaloo xafladan guddiga gurmadka abaaraha dowladda federaalka, guddiga gurmadka abaaraha koonfur galbeed soo gaarsiiyeen lacag dhan 200,000 oo dollar oo deeq ah oo ummadda ugu deeqday dadkoodii dhibaataysan, oo guddiga gurmadka oo soo safray oo nagu wareejiyey, nagana codsaday in meeshii loogu talagalay la gaarsiiyo iyo dadkii loogu talagalay. annagana ballan qaadnay in dadka dhibaataysan la gaarsiiyo oo ku nool gobollada degmooyinka. mahad ballaaran ayaan u jeedinaynaa guddiga gurmud. waxaan baaq wadajir ah ugu jeedinaynaa in ummaddan lala soo gaaro gurmud. xilli roobaada lagu jira, dabaysha roobka iyo biyaha ayaa maaragtay maatadii dhaawacaysaa, waxyeelaynaysaa. in hooy ay helaan, raashinna helaan, daawona helaan, biyona helaan, dib u celinna inay helaan ayaan baaq ugu jeedinaya adduunka. sidaas lamida dowladda federaalka gacan intaan ka ballaarano ka weyn oo ka mug leh in la soo gaarto ummaddan dhibaataysan. annagana waxaan ballan qaadaynaa inaan la wadaagno, la qiibsano dadkeena dhibaataysan dhibaatada, gaarsiinana wixii gacanteena soo gala si ammaano leh, nadiif ah aan ku gaarsiino ayaan ballan qaadaynaa. waxaan ku soo dhaweynayaa mikrofonka gudoomiyaha guddiga wafdiga socda oo ka socda guddiga gurmadka heer qaran. Sheekh Yuusuf, soo dhawow.